magacaygu waa Cabdilaahi Xasan halkanina waa Sancad Media kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta inta aynan u gadagelin muuqaalkeena ha ilaawin inaad like noo saartid lana wadaagtid asxaabtaada si uu u faafo haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo baaweynteena nagu xidhan mahadsanidin. filimkeena maanta wuxuu ku bilaabanayaa xabsiga iyo halganka dadka gudihiisa ku jira. filimkani waxa uu ka sheekeynayaa xabsiga, goob adag oo dadku ku xiran yihiin oo ay wajahayaan nolol adag, halkan joogto ah iyo caqabado ay ku nool yihiin nolol maalinle ah. waa sheeko muujinaysa sida bini'aadamku uu u adkaysan karo cadaadiska, uuna ugu dagaalami karo xorriyadiisa ama cadaaladiisa. qaybta hore ee filimku waxay soo bandhigaysaa nolosha xabsiga gudihiisa, halkaas oo maxaabiistu sababo kala duwan laga bilaabo dambiyada fudud ilaa kuwa culus waxaa laga helaa habdhaqan kala duwan oo ay ku sameynayaan shaqaalaha xabsigu, kuwaasoo qaarkood u muuqdo kuwa dulmi ku haya maxaabiista. filimku wuxuu diiradda saarayaa xiriirka dadka maxaabiista ah, tabardaradooda iyo rajadooda ay u qabaan mustaqbalkooda. dadka ugu muhiimsan sheekadan waxaa ka mid ah maxbuus halii ah kaas oo u xiran sabab xaqdaro ah laakiin aan marnaba quusanaynin. waxa uu bilaabayaa inuu ka dhex dhiso shabakad dadka maxaabiista ah oo uu ku dhiirigelinayo inay ku istaagaan xaqooda. intii uu xabsiga ku jiray wuxuu la kulmay saaxiibo cusub iyo sidoo kale cadaawooyin ka imaanaya dhinacyo kale. qaybta dambe ee filimku waxuu ka muuqanayaa qorshe uu hayeegaasu ku doonayay inuu xabsiga kaga baxsado ama ugu yaraan uu ka keeno isbeddel nidaamka cadaaladda ah. waxay noqotaba safarkii u dhaxeeyey rajo iyo murugo, iyadoo filimkii uu ku dhammaanayo si ka duwan sidii la filayay, oo laga yaabo inuu haligaasu ku guulaysto xorriyadiisa ama ku weynayo noloshiisa iyada oo wali uu dagaalamayo runtii. filimkani waxa uu iftiiminayaa mawduucyo qoto dheer oo la xiriira cadaalad darrada, awoodda ruuxiga ah ee qofka bini'aadamka ahi, iyo sida isbeddelka uu ku yimaado oo la marayo halkan iyo isku duubni. intaas ayaynu ku soo gunaanadaynaa muuqaalkeena maanta. haddii uu ku qanciyey muuqaalkeena ha ilaawin inaad like noo saartid lana wadaagta asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo baaweynteena nagu xidhan mahadsanidin.